habeenkii xalay ayaa magaalada London ee waddankan Ingiriiska waxaa lagu qabtay xaflad lagu damaashaadkaas oo ka dambeeyay kadib markii dowladda waddankan Britain ay gabi ahaan ay joojisay cunitaanka iyo iibinta qadka. xafladan oo ay markaasi soo agaasimeen dhalinyarada Soomaalida ee ku nool waddankan Britain ayaa waxaa khudbada goobtaasi ka aqriyay rag ka socday ciidamada booliska siiba kuba Scotland Yard. sidoo kale goobtaasi waxaa khudbad ka aqriyay Abuukar Cawaale oo ah geesiga Soomaalida ee u suurta gashay in uu ku guuleysto in laga joojiyo qadka waddankan Britain. khudbadahan oo ahaa khudbado runtii si wanaagsan u taabanayay bulshada Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku bilaabmeen sida tan. From a policing point of view, we're really here to answer questions, but to say thank you. Thank you to Abuka. Thank you to the Somali media that has helped get the message out. Thank you to the Somali community groups that have helped get the message out. A policing success here is no one being arrested, no one being criminalised, and we are very grateful for all of the help to get the message out to the education so that there will be life after CAT and there will not be trouble or antisocial behaviour or problems within the Somali community. Good evening, Assalamu alaikum. My name is Nick and I'm from the police. I just wanted to say I don't think I've been in front of such an enthusiastic audience before. I was listening to the lady's poetry and it was being translated to me, and she was rightly making the point that there's lots of fear about what may happen to people who've got addictions. There's lots of help available through your GPs, through the local drug action teams who will deal with the addictions. gabadii xafladaasi ayaa waxaa halkaas khudbad qiiro leh ka jeediyay Abuukar Cawaale oo ah halyeega Soomaaliga ee u suurta gashay in jaadka gabi ahaan laga bangareeyo ama laga joojiyo waddankan Britain. 10 sano ka hor ayay ahayd anoo qaad afka igu jiro markii ambalaasyada Ingiriisku marfishiga dhex qaadeen. waa Ilaahay mahadi 10 sano kadib haddaan caawa idin hortaaganahay haddaan inta ka soo kabsaday oo aan dhexda xirtay oon u istaagay inaan wiilasha yaryar oo soo koraya laga hortago si aysan dhabbihii qodxaha lahaa anigu aan soo maray ugu dhicin. ilaahaygi igu aadiyey dhabbahaas oo igu sugay baa horta mahad iskale. waxaa la soo maray runtii halgan dheer. dad badan baa halkan ka hadlay oo waxqabadkii ka sheegay, laakiin waa run marmar aan keligay ahay oo tol beelay ku hayay way jirtay, laakiin teel baa la ii soo gaarayay. maalmo waxaa jirtay aan ooyayay, laakiin rag baa isoo garab istaagay. ma runtii ma soo koobi karo dadka ololahan gacanta weyn ka geystay, laakiin marna ilaawi maayo artikaladii ay qoreen, ribooradii ay diyaariyeen. waxaan leeyahay ka qayb qaata ololahan. haddaad u malayseen guushani caawa inta lagu kala tagayo Ingiriis waa ku guulaysanaya lagu kala dhaqaaqayo waad garab marteen. waxaan leeyahay waa dhicis guushani haddii aysan gilgilin dariiqyada Hargeysa iyo Muqdisho iyo Boosaaso iyo Soomaaliya haddaan loo kicin, haddaan la oran haddii wiil yar oo qaxootiga waddan gaalaa joogay uu inta kaco qayliyo dad helo community helo wax ka bedeli kara waddan kale, ciidda ii hilin doonto inay dhalinyarada Soomaaliyeed dhaadaan. use your voices waa guul weyn, laakiin guushani waa dhicis haddii aysan gilgilin geeska Afrika la'aantiina maan sameeyeen. ugu dambeyntii iyo saan hadalka ku bilaabay waxaan u hibeeyay guushan waxaa iska leh hooyooyinka Soomaaliyeed. hanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحمد الشيخ عبد الله. والله عاوة فرحت وين وحوي وأقول سومالو سهيتي وحنا ربائنا يا حتى تاسوت سالة سومالو مركز يسوت مادو أيضا عن قبيل لهين أيضا عن لهين محوها كلا قيمين إن أي قول كربت جاري كرته. مقعي وحلا فرحية حرير وحكم ذي هوي إن كدجان حافظ الصدق تنستين وحرب برسجرين يا سومالي دجان صدق تنستين وحنا هذه أدوهم بليين يا
عوالة joojinta la joojiyay Well, we love the Somali community, and we're just happy to. I work for Angie Bray, the local MP, and I'm a Hanger Hill counselor for Ealing. I'm an Ealing counselor. So we just really support the Cat Band, and Angie has worked very hard with Theresa May to make. 20 bisha June 2014 ayaa wadankan Ingiriiska waxa si rasmi ah looga gabagabeeyay ama la joojiyay jaadka waxaana farxadii caaw inaan hortaagnaado Abuukar Cawaale oo ah qofkii u dhintay ama haliyay Soomaaliyeed oo runtii u istaagay in jaadka la joojiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله رويال يداوداشنا aad baan idin salaamaya waan idinkaga mahadcelinayaa doorkii aad ka qaadateen ololahan Cawaale runtii wax la iloobi karo maaha xafladda caaw halkan ka dhacday isla markaasna malaayiin Soomaali ayaa waxa ay ka daawanayaan telefishinada waxaan rabaa in aan wax ka ogaado geesinimada iyo adkaysiga aad u yeelatay in aad runtii ku guuleysatid in sharci kamid ah wadankan Britain hadda aan ku noolnahay in ay dawladda ay wax ay ka bedelaan Cawaale walaal aabayaasheen iyo awowayaasheen bay wixii gumaysiga la soo dagaalay Soomaali waligeed bay geesiyaal ahayd waxaan oran karaa anigu geesi maahay laakiin waxa geesiina runtii hooyooyinkii u adkaystay oo samreeyay oo ducaynayay oo garab taagnaa oo iyada barafka ah mudaharaadka garab taagnaa ilaahay baan nagu dawaan oran karaa runtii waa guul weyn aad baan ugu faraxsanahay sida ay daawadayaasha runtii aad u jecel yihiin mar waliba codkaaga dadka way sugaan anaana kamid ah dadka inta badan aad u xiiseeya in la joojiyo jaadka runtii waxaan halkan kaaga mahadcelinayaa haddaan nahay bahda Royal iyo meediyaha guusha u soo hooyatay dadka Soomaaliyeed aad adigana aabaha ka tahay Cawaale ya halkan aad ka salaami lahayd isla markaasna aad bogaad u jeedi lahayd Cawaale waxaan runtii fursad aan ka faa'iideysanay dad ummadda Soomaaliyeed dhammaan salaamaya kuwa adduunka jooga taageerayo soo ducaynaya balada soo diray laakiin fursadda aan ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed guushan hadii aysan ku dhiiran oo aysan tusaale u noqon waxay noqonaysaa runtii guul qabiya ah marka waxaan leeyahay u istaaga Muqdisho iyo meel walba Soomaaliya in looga istaago qaadka laga hortago daawadayaal sida u jeedaan runtii xaflad aad iyo aad u xiiso badan ayaa goobtan ka dhacday isla markaasna waa maalintii sida rasmiga ah loo soo gabagabeeyay jaadka waxa aan ku suganahay waa magaalada London ee wadankan Ingiriiska isla markaasna ii suurta gashay in aan waraysi aan ka qaado Cawaale oo ah geesi Soomaaliyeed isla markaasna ku guuleystay joojinta jaadka waa Saalim Salaad Dore magaalada London ee wadankan Ingiriiska